وبرنامجكني معد بوجا ونقصو قادن دونو بوجا لا يراهدو The 48 Laws of Power يا قرأ روبرت جرين قرأ لا يراهدو بوجا هو بوج أي كحدين يهين أو يكدوين يهين حوالين قضباء يحرر ما شرعيه aad hariso qaarkoodna ay yihiin qaar sharba oo wanaagsaneyn yani wanaagsaneyn marka la eego dhanka aqoonta diin ahaan insaani ahaan marka la eego wanaagsaneyn laakiin muhiimada waxa weeyaan buugan soo qaadanay waxaan ka soo qaadan doonaa 6 qodob oo aad muhiim ah oo qofka adeegsan karayo kuwaas oo u sahli karaya inuu yeesho awood ana qaaran waxa weeyaan dadka kale aan shar ku ahayn muhiimada weyn ay qodobadan u adeegsanaynaana waxa weeyaan inaynaan cid ku dhaawicin laakiin inaynu nafteena ku ilaalino wayna waxa weeyaan wax caqabad aan naga qiimin bilaadanka waxa weeyaan intooda badan qaarkood ay yihiin sharoodayaasha shayga ugu horeeya ama qodobka ugu horeeya waxa uu leeyahay qofku si awood iyo shucuur baahan yahay inay dadku isaga ku tiirsanaadaan yani qofka hadii laga maarmi karayo way fududahay sida looga takhalusi karo amba sida yani uu bila saameynta noqon karayo markasta ay dadku kugu tiirsan yihiin waxa fudud sida u haysan karayso ama waxa weeyaan awood ugu dhaxyeelan karayso oo qofka saaxiib jecel yahay inuu awood yeesho adigu dadku waxba yeelayn hadana si aad noqoto qof muhiim ah waxaad u baahan tahay inaad u muuqato qof muhiim ah ahaato inaanad u muuqan kaliya balse aad ahaato marka dadku waa inay adiga kugu tiirsanaadaan si ay dadku kugu tiirsanaadaan waa inaad la timaadaa dhamaan waxyaabaha yani sahlaya in lagu tiirsanaado amba xagga shaqada ha ahaato bayaniha xagga qoyska ha ahaato amba xagga bulshada yani dhan walba ha ahaato dhamaan xirfadaha lagaga baahnaa iyo waxyaalaha lagaga baahan yahay waana iska dhisi kartaa xagga shaqada kale haday noqoto xirfadaha shirkadu kaga baahan tahay waana si fiican iska dhisi kartaa in adiga lagaga maarmi karin yani lagu arkay inaad ku master garayso lagaga daba fariisan karin adiga qodobka labaad waxaynu leeyahay marka doonaysid inaad jibiso cadawgaaga waa inaad ka heshaa xog aad u fara badan يعني عدوغاga marka doonaysid inaad jibisid macnaheedu tahay dhanka yani dooda iyo dagaalba hadii ay noqoto waa inaad xog fiican ka heli karaysaa waayo xog la heliyaa waxa la yiraahdaa xal hel oo macnaheedu tahay hadii aad xog tiisho waxaad heli kartaa shayga qaabkeedu xalin lahayd ee ugu gudbi lahayd amba ugu takhalusi lahayd marka hadii doonaysid inaad ka guuleysato yani opponentkaaga yani cadowgaaga amba cidii waxa weyn mucaaradkuba waa inaad xog ka heli kartaa waayo markasta xog ka hayso waxa weyn cid ka soo horjeeda way fududahay si aad uga guuleysan kartaa qodobka saddexaad waxa uu leeyahay waxaad isticmaashaa maqnaanshiyaha si aad yani u kordhiso sharafta iyo waxa weeyaan ixtiraamka sababtu waxay tahay bal waxaad fiirsataa mar kasta oo dadka aad u soo dhaxgasho aad ugu soo dhawaato waa mar kasta oo duwaysa yani sharaftii aad u haysa ama meeqamkii aad dadka ka taagneed dadiyada qaarkood mostly badadiyada badankoodu waxay tixgeliyaan amba ibn aadamku uu sameeyay dabcigiisu hadba wixii ka maqan buu raadiyaa marka si adoo hato qof la tabi karayo qof wax weeyaan macnaheedu miisaan weyn leh yani aad ha ugu badinin dadka cagta aadna ha u dhaxgelin laakiin yani saacid wuxuu qabo balse laakiin ha noqon qof markasta la heli karayo markasta noqoto qof la heli karayo 100% waxaad ogaataa in value-gaaga qiimahaaga iyo maqaamkaaga hoos u dhacayo qodobka afraad waxaanu leeyahay despise the free lunch waliga ayaa la qaadanin cadqooreedka yani Soomaaliduna aad bay inta badan uga taxadirtaa qodobka noocan oo kale ah yani inaad wax bilaash ku qaadato ma wax dheeldheela yani qof wax bilaash ugu siinayo yani waxbuu uga jeedaa yani waxba ka dambeeya ujeedba ka dambeeya qofkaasi hadii aanu ahayn family-gaaga walna family-gaaga cid kugu dhow walaalaha ayaanu ahayn oo dad kale yahay waxba jira yani sabab baa jirta oo siinayo shaygaas markaad shaqo qabanayso markaad yani hawl ku jirto markaad cid wax qabanaysaan waliga ayaa laha bixi qiimaha waxaas yani istaahila laakiin ha qaadanin cadqooreedka amba waxa la radaa yani wax freega way wax free ma jiro shay kasta waxba lagu golanay marka waxa lagu sii freega yani dadyo badan waxa lagu qiyaamiyay in inta wax free looga dhigay dadana laga dhamaystay dana badan marka ha aqbalin waxa yani plashka waayo wuxuu hoos dhigay kariya qiimaha iyo saameynta leedahay shay kasta ku bixi qiimaha uu istaahilo iyo xadiga lacageedu leeyahay qodobka shanaad wuxuu leeyahay noqo qof bila qaaba way macnaheedu tahay halahaan meel lagu soo hagaago noqo buu leeyahay qoraagu sida waxa weeyaan biyo kale way biyo waa shapeless like meel kasta yani way kaadaan meel kasta marayaan yani waxay sameeysan qaabkeeda haddii si fiican lagu akhri karayo si fudud loo heli karayo laguna akhrisan karayo
fududaanaysa si lagu jebin karayo ama sida lagu saameyn karayo marka inaad mar kasta yacni xaaladda la qaab noqoto oo lagu akhri kari waayaa waxay sahlaysaa inaad noqoto qof aan la malaysan karaynin يعني on loo darasi karaynin waxa qofka ka qiiman karaya markastoo lagu malaysan karayninna waa markastoo saameyn lagu yeelin karaynin aan baan lagu jibin karaynin waayo haddii aan lagu malaysan karin lama garan karayo si lagu soo hagaago marka tan macnaheedu maaha inaad ahaato qof wax weyn munaafiq oo dadka ku dhibaateeya laakiin waa inaad iska ogaataa dadka sidan oo kale kula dhaqmi karaya sidoo kale waa inaanad ahanin qof si rafud la akhrisan karayo waayo tan waxay sahli doontaa inaad noqoto qof yani saameyntiisa leh oo meel wax weeyaan ma garanaysaa wax weeyaan weakness oo lagu jibiyo oo lagu dhibaateeyo aan laga heli karin qodobka ugu dambeeya waxaad ku dadaashaa yani xirfadda amba wax weeyaan aqoonta waqtiga yani aqoonta waqtiga waa maxay waa inaad noqon karaysid qof sabri karaya yani waxa laga yaabaa hawl baa ku yani timid dadka qaarkood hawshaa timid waa qaar si degdeg oo jecel inay qabtaan hawshaas yani tan macnaheedu waxa weeyaan haddii shay lagu ballan qaado oo sugaysid tan يعني ku degdegin weliga ay laha hamuujinin yani degdeg far badan hamuujinin way degdeg far badan waxa kana in qofka wax ku siinayo amba qofka wax weeyaan wax ka qaadanayso amba qofka hawsha kula qabanaya oo ka shakiyo wax weeyaan degdegaagan oo ku arka qof aan fadhiyin perfect kind marka isku day inaad sugtid talaabo kasta yani waqtigeeda la qaadayo isku day inaad yeelatid sabirka naftaada ku hayn karayso xaaladu marka qaarkood si kasta oo adag tahay si aad u sugtid waqtiga ku haboonayd inaad talaabada qaado waa inaad u kaadsato oo dukaadiso oo aad waxa weeyaan u dhibirsanaanto inaad waqti ku caynto ku sugto shaygaas aad doonaysid waqtigeeda qaadato ka go'naanshiheeda iyo dhabar adeegeeda yeelataa waxay ku sahli doontaa inaad noqoto qof waxa weeyaan waqtiga ugu haboon qaado talaabada ugu wanaagsan marka degganaantu waxaan waa shay muhiim ah maxaa la degganaantu buraha ay dhaqaajiso markasta inaad degganaan ku waxa weeyaan wajahdo waxa doonaysaa adigay ku tahay waxaan faacile waxaan rajaynayaa inaad fahamteen muhiimaddu ma ahayn dadka qiyaana ama in ku dhibaatayna laakiin muhiimaddu waxay idin inaynu iska jirna dadka qaabkana kale u dhaqmaya innaga laftigeena inaan dadka ku dhibaataynin balse laakiin si wanaagsan qodob badan aynu adeegsano aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh